haddii aan wax yar warbixin ka siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee waddankeena tirada ilaa iyo hadda waa 60 xaaladood xaaladood ee xalay aan idinka siinay warbixinta maanta laabka aad ayuu mashquul u ahaa marka waxaan bidaynaa caawan late inay soo bixi doonto ama berri subaxi insha allah tacaala resultskii maanta intii la qaaday xaaladda waa sidii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in dhakhaatiir badan oo ilaa iyo 8 cadadooda ay tahay nambarkooda uu yahay ay qaaday cudurkan coronavirus dhakhaatiirta waa dadka ugu horeeya dagaalanka ku jira waa dadkii xanaaneynayay dadka cudurka qaba waxaa loo baahan yahay taxadar zaa'id inay sameeyaan dharkii ay xiran lahaayeen marka ay qofka ka shakiyaan loo yaqaanay protective gearka iyo okyaalihii iyo wax allaala wixii ka xakameynaya inuu cudurka u tallaabo waa inay marwalba ku dadaalaan wasaaradda caafimaadka wax allaala wixii soo gaaro oo deeqa ama ay soo iibsato oo qalab ah waxay isku dayeysaa in isbitaalada dadka waaweyn qaabilaan inay wax ka siiso in meesha lagu karantiinayo la geeyo in yacni laga taxadaro dadkii daaweyn lahaa dadka xanuunka qabeedkan cudurka ilaahay ha naga yasiro cudurkan aafadiisa iyo dhibkiisa weli waxaan siinaynaa walaalaheen soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan taxadarkooda inuu sarreeyo in ma aragta shirarka la iska yareeyo in la kala dheeraado oo social physical distancing la sameeyo oo ilaa ay ugu yaraan 2 mitir la isku jirsado inaanan meelaha buuqa la isugu tegin inaan yacni barnaamada iyo meelaha ciriiriga la isugu tegin cid walba oo aan dan degdeg qaas lahayn si loo xakameeyo cudurka waa halis haddii uu gaaro ma aragta haddii uu bulshada ku fido walow dhimashadiisa ay markii la fiireen ka yar tahay cudurro badan oo saamafida haddana khatartiisa iyo fididiisa aad u weyn waxaan ku talinaynaa in la ilaaliyo dadka xanuunada gaarka ah yacni dheeraada qaba dadka waayeelada ah iyo dadka ma aragtay difaacooda uu yaryahay in aad looga taxadaro in laga ilaaliyo bulshada iyo familka intiisa kale in ma aragta qofka haddii uu isku arko calaamadihii xanuunka ee dhowr jeer lagu xilxiliyeen uu soo wacdo nambarka 449 si wacyigelin loo siiyo qofkii u baahan markaas in yacni test lagu sameeyo oo laga baaran markaas lagu waaliyo inuu soo raadsado meesha baaritaanka uu tago oo laga qaado mar labaad waxaan idinku dardaarmayaa dhammaan in laga taxadaro cudurkan sidii loo yareyn lahaa wacyigelin la sameeyo bulshada qaybaheeda kala jaadka oo dhan ay ku howlanaadaan sidii looga hortegi lahaa